waxaan joognaa magaalada qadiimiga ah Warsheekh ee dhacda koonfur bari ee gobolka Shabeellada Dhexe macna xirtiisa kulli sheekhan carabta meesha uu ku tagi karaa waa xilliga madfacan lagu garaacay meeshan waxa waa 1890 Abriil sida ay sheegaan taariikhda Warsheekh is a coastal town with rich history and ancient memories, a hub of trade and a religious network that linked the Somali Sea. For centuries, it has been a place of exchange of goods, ideas and knowledge. Where the Indian Ocean meets Somalia's coast, a town holds its history, like shells hold the sea. The day begins at the water. For centuries, ships and caravans meet here. Today, children run the same sand where merchants once walked. The coastline is not only a view, it is the town's front door. Warsheekh grows as a link between inland markets and the Indian Ocean. The town became a center of Islamic learning, where scholars taught and students stayed. waxaan joognaa magaalada qadiimiga ah Warsheekh ee dhacda koonfur bari ee gobolka Shabeellada Dhexe runtii magaalada waa magaalo taariikhi ah waa magaalo kamid ah imaaraadkii iyo islaamiga ahaa ee ka jiray geeyiga Soomaaliyeed halkan waxay leedahay taariikh weyn ay leedahay waxa ku yaalo masaajid qadiimi ah masaajidkan oo loo yaqaano Sheekh Abubakar Mihraaz dadka deegaankan ay u yaqaanaan Sheekh Abikar masaajidka Sheekh Abikar masaajidkan waxa la dhisay xilli foga la dhisay ku dhawaad waxa uu dhisan yahay 200 oo sano laba qarni ku dhawaad dhisan yahay marka waxaan rabnaa waxa laga sheegay taariikhda inay ku qoran yihiin iyo xilliga la dhisay darbiyadiisa ku qoran yihiin sida la sheegay sheekhi dhisay meesha ayuu ku duugan yahay oo saldhig ah marka magaalada waa magaalo taariikhi ah masaajidkan caan ay ku tahay halkan waa meesha laga soo korayo masaajidka xeebtana laga galo masaajidka waa kana gudihiisa mixraabkiisana waa kana waa masaajid taariikhi ah xeebta wuxuu u jiraa intaan oo ujeedaan xeebta uu saaran yahay magaalada Warsheekh mixraabka waa kana qoraalada iyo taariikhda la sheegay ee ku qoranna gudahan galeynaa waa ogaanaynaa sida laakiin buugaagta ku qoran iyo meelaha wax lagu baahiyay waxaa la dhisay 1278 hijriyada oo ku aadaneed 1861 ilaa 1862 aan gudaha u soo galnay masaajidka gudihiisa masaajidka waxa ay tiirar afar ah gudihiisa ka dhisan marwaxadu leeyahay marka waxaan rabnaa taariikhda halka ay ku qorneed inaan fiirino halkan waa meesha ay ku qoran tahay taariikhda xilliga la sameeyay masaajidka iyo xilligii la asaasay ku qoran waxa waa markii labaad markii la sameeyay 1400 dib loo asaasay loo sameeyay laakiin sida ka hor ku qoran oo horaadi ku sheegna waxa waay 1278 hijriyada oo ku aadan 1861 ilaa 62 ku aadan marka taariikh fog oo leeyahay waxa kale oo meesha masaajidka ninka dhisa sheekhi hay jirina waxa uu ku duugan yahay meesha uu ku duugan yahay masaajidka dhinaciisa kale asagana waa soo arki doonaa insha Allah si aan taariikhda wax xaqiiqsano ayado dhameystiran At its heart is a mosque of Sheikh Abubakar Sheikh Mohammed. The building carries an inscription 1278 Hijriya that lies to 1861 to 1862. But beyond dates, the mosque is daily life, prayer, learning and memory. Here, the bus is not museum quite. It is alive. warqadaan uu watay ijaazada warqada oo watay sheekh waa kana marka waxaa loo hadlaa ilaa kaafatul arab
carab oo dhan oo xilligaas hada muxibana al-ikraam abubakar maxmuudar macna xirtiisa kulli sheekhan carabta meeshuu rabo ku tegi karaa waay wax ku hor imaan kara male oo leh mugtahay xumaana malo tusi kara sheekhu leeyahay xilligaas way mugtahay halu qaabilo xishmad iyo karaamo halu qaabilo leeyahay صحيح واكنا ختمي واي ها صحيح وحوا مركز سلطان سعيد ماجد سعيد برقش مدحوينه عمان واي ها مدحوينه عمان واي ها وكاس ورقتان وتي او اقونسيغا حربو دن انو شيخ ويحي معناها waxa ruqsadii dawladda ay siisay waa ها مدحوينه سلطان سلطان سعيد oo siiyay ها سلطان سعيد برقش ها واكنا معناها waxa la soo siiyay laakiin kun laba boqol 89 بس تضوات معناها مساجدkan markii la dhisay kadib hal sano warqadan oo helay ruqsada هل سنه helay هو كاس مركز الى كافه العرب الى كافه العرب وهذا محبنا الاكرم ابو بكر المحضار لكن meeshan hadda محضار ay ku qoran tahay markaad wikipedia ama googlaha iyo aagashid مهزار ku qoran صح واكنا kana saxay marka maadaama gacan lagu qoray mixdaarka sax waxyaabaha u baahannahay in la bedelo ka mid tahay magacyadaas oo kale hadda hadii la bedelo waxa la heli karaa taariikhda dhabta meesha ku jirto معناها وحالوس معناها لسي الصغار والكبار تلاميذ معناها تلاميذ ومقتها الى تلاميذ الصغار والكبار واتي كران وتمك عرب هو الشيخ واتي كران معناها ان العلم القائمين بخدمه شريعه محمديه شريعه المحمديه على صاحبها الافضل صلاه والسلام فنرجو كافه العرب أن لا يتعرضوهم بسوءها معناه إنه يكون ضدك عرفت وحنا كرجالنا أما إسلام قرآن بمال والبوت شيخ إنه سن حماها كالهور معنين أو إنسان معناه الدين يا أو يكون معناها قابلان بالمحبة والإكرام معناها الجعيل يضيق سينما يكون سوء وحسن كما حسب ظن كما حسب ظننا والسلام انت معناها كفله انه الدنيا عرفتها كفله ما شاء الله معناها حلقه التحريري ولا soo saaray warqadan ruqsada ahna waa 1279 hijriyada. The Imam's voice is a voice of stewardship, daily care, as a form of resistance to forgetting. But the Shulan holds another memory, an event that marked was and foreign ambition. In April 1890, a local clash led to the killing of several Italian sailors. The response was an Italian naval bombardment of the coast, a violent episode that left a trace in local memory. madfacan aad u jeedaan waxa uu ka haray halaadigi madaafiicdii lagu garaacay magaalada Warsheekh ee dhacda 70 kilomitir ilaa 60 kilomitir inta u dhaxaysa magaalada Muqdisho xilliga madfacan lagu garaacay meeshan waxa waa 1890 April sida ay sheegaan taariikhda halkan waxa soo gaaray gumeystiga Talyaaniga oo madaafiicdan ku garaacay dadkii joogay ee meeshan ka dagaalamay gumeystiidka ahaayeen waxa ay la direen gumeysigii waxa ayna ka dileen laba nin oo waaweyn kabtankii waday doontii garaacaysay magaaladan iyo taliyihii meeshan ka talinay Carlo Zavalli iyo Angelo labadaba waxay ku dhinteen gacmaha Soomaalida xilligaas marka madfacan waxa uu u yahay athar iyo taariikh haraysa iyo raad waxa loo baahnaa in la kaydiyo meel lagu ilaaliyo si loo tuso gumeysigii iyo gobodfalkii wadankan uu ku hay waxa kale oo sheegay magaaladii ugu horeysay ee Afrika ee laga garaaca dhanka badda inay tahay magaalada Warsheekh halka magaaladii ugu horeysay ee dhanka cirka laga garaaca ay tahay magaalada Taleex labadaba waa wadanka ugu horeeyay ee gumeystaha ay u isticmaalaan inay cirkana ka duqeeyaan baddana ay ka duqeeyaan. History sits lightly on the sun but heavily in the stories families pass down. Heritage here is not archival alone. It is lived every day, repeated in prayer and taught in small acts of care. Worship continues. It is daily rhythm
is shaped by tides and labor, by study and market. The town carries both pain and beauty. The two of them arrive together. When night comes, the moon returns as witness. Tonight, the supermoon rises brighter and near. It reminds us some patterns repeat, tides, prayers, the turning of generations. Warshik keeps its history on the shoreline, the mosque that shelters memory, the coast that poor conflict, the people who keep both alive. As long as the tide returns, so too well the town's stories.